Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan. Halkani waa Zack Films. Fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqanayso channelkan, waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid, sidoo kalena muuqaalka aad like saartid. Filimka maanta waa filim aad u xiiso badan, waxaana lagu magacaabaa The Orville. Filimkana ayaa ku bilaabanaya 2418. Xadaarada iyo horumarka ayaa meel sare laga gaaray. Teknolojiga ayaa wax waliba ka dhigay kuwo fudud. Bani'aadamka ayaa sidoo kale awooday in ay aadaan ama tagaan dhammaan meerayaasha kale iyagoo baaritaano badan lagu soo sameeyay. Waxaa jira meerayaal cufisjidadkooda hooseeyo sida dhulka oo kale, iyo kuwo cufisjidadkoodu sarreeyo sida Seelan. Si bani'aadamku ay u tagaan meerayaasha cufisjidadkoodu sarreeyo, waxay u baahan yihiin suudka badbaadada oo ah mid casriyeysan. Excellion ayaa 10 jibbaar cufisjidadka ka sareysa dhulka. Si ay maraakiibtu ugu duulaan meerahaasi, waxay u baahan yihiin gaashaan adag. Haddii mar ay kasoo gudbaan gaashaanka, waxay 10 jibbaarmi doonaa culeyskooda, kaasoo dhimasho ku sababi doona. Xitaa haddii alaabta dhulka la keeno, meerahan waxay noqonayaan kuwo isburburiya. Waxaa intaa dheer, haddii suudka qofku wax soo gaaraan, jirkiisa ayaa mid isku burburin doona. Laakiin kuwa ku dhashay meerahan cufisjidadkoodu sarreeyo waxay la dhashaan lafo waaweyn iyo awood badan, iyagoo ka awood badan kuwa ka yimid dhulka. Excellionka ayaa loo aqoonsan yahay inay yihiin kuwa ugu awooda badan caalamka. Mid ka mid ah kuwa ugu awooda badan Excellionka ayaa la yiraahdaa Alara Kitan. Waxay awoodaa in ay burburiso albaabada adag iyo weliba gidaarada. Sidoo kale waxay burburin kartaa dareeraha titaniumka. Waxay qayb ka tahay cilmi baarayaal lagu magacaabo USS Orville. Shaqadooduna tahay in ay ilaaliyaan sharciga meerayaasha ayna ka hortagaan halis kasta oo soo wajahda meerayaasha. Kooxdan Orville ayaana shaqaaleysiisay qaar badan oo bani'aadam ah iyo kuwo aliens ah, waxaana horjoogay Captain Mercer oo loo yaqaano shaqo fudeediye. Waxaa kaloon arkaynaa meero kale oo lagu magacaabo Zargus 4. 2 qof ayaa lagu wareysanayay kuwaasoo dembi galeen, halka qof kasta uu xiran yahay jaakad, taasoo ogolaansho iyo diidmo ka kooban. Intaa kadib, dadka ayaa bilaabaya in ay u codeeyaan in labada dambiile la ciqaabo iyo in kale. Codadka ayaana laga tirinayaa live-ka TV-ga. Dambiilayaasha ayaana loo soo kaxeeyay qolka ciqaabta. Mid ka mid ah ayaana isku dayay inuu baxsado, balse askari ayaa isla bartii ku toogtay. Kii labaad ayaana la keenay qolka, waxaa lagu xiray kursiga isagoo mashiin madaxa loo geliyay. Isla markiiba qaybta cas ama guduudan ayaa gaartay 10 milyan, waxaana qaban doona korontada, taasoo masixi doonta dhammaan maskaxdiisa. Muuqaalka ayaa intaa kadib isku rogaya. Maalmo kadib, kooxda Orville ayaa soo gaartay Zargus 4 iyagoo raadinaya 2 qof oo ka maqan. Inta aysan bilaabin mishinkooda, Captain Mercer ayaa u bandhigaya kooxdiisa in 2 sahmiyayaal loo diray Zargus 4 si ay wax ugu soo baaraan, balse bishii ugu dambeysay in aan laga helin wax xiriir ah, isagoona xushay 4 qof: hogaamiye Kelly, Dr. Clay, Lieutenant Lamar iyo Lieutenant Alara in ay u degaan Zargus 4. Markay soo gaareen meerahan, waxay arkeen in loo dabaaldegayo qarnigii 21aad. Ninkan ayaa ku ammaanaya saaxiibkiisa inuu iska riday culeyskii, isagoona u codeeyay una taabtay badhanka cagaarka ah. Nin kale ayaa kafey kula kor dhacay nin kale oo wadada ag marayay, isagoo u taabtay badhanka cas. Zargus 4 waxay dadku ku dhaqmaan qaab dimuqraadi ah iyo qadarka kooxda. Iyagoo waqti iska lumin, waxay gudagaleen howlgalkoodii. Xoogaa kadib, waxay tageen goob dukaan ah iyagoo wax ka weydiiyey labadii nin. Ninkii ayaana si dhow ugu sheegay in ay dembi tahay in qalabkan la'aantiisa la socdo, isagoo siiyey. Kadib afartoodii oo wada socdo, Lamar ayaa bilaabaya inuu la ciyaaro taalo meesha ka dhoweyd. Hogaamiye Kelly ayaa ku amraysa inuu joojiyo ciyaarta, balse waxaadba moodaa inuu joogo baar. Dadka qaar ayaa bilaabaya in ay duubaan. Kadib, kooxda ayaa aaday dhinaca maqaaxi kafe ah. Waxay arkeen in naag loo diiday maqaaxida nambarkeeda diidmada oo badan awgeed. TV-ga ayaana laga sheegayaa in dadka tirada diidmadoodu badan tahay aan laga doonaynin inay bulshada ka mid ahaadaan. Kooxda ayaana la hadlaysa gabar adeegto ah oo lagu magacaabo Felicella, iyagoo tusay sawirada raggii la raadinayay, iyadoo u sheegtay in la masaxay. Balse inta aysan wax badan ka weydiinin tirada diidmada, Lamar ayaa aad u badatay. TV-ga ayaana laga soo siidayay isagoo taalada la baashaalaya, taasoo ah mid ay caabudaan dadka meerahan. Kooxda ayaana go'aansatay in ay dib ugu noqdaan meerahooda, balse marka ay banaanka u baxeen, dadka ayaa sidii shinnadii oo kale kusoo xunsamay. Balse goobta ayaa soo gaaray booliska. Lamar ayaana la xiray, waxaana loo keenay nin lagu magacaabo Wilkes oo ah lawyer, isagoona ka wareystay sheekadiisa
kiiskiisa, balse Lamar ayaa u sheegay in uu kaliya ciyaarayay isagoona ka codsaday looyarka inuu wax uga sheego sharciga meerahan maadaama uusan waxba kala soconin. Wilkes ayaa u jawaabay Sargeant in lagu dhaqmo nidaam dimuqraadi ah. Haddii uu qofka galo dambi, waxaa xukumi doona dadka iyadoo la isticmaalayo nidaamka codaynta. Haddii uu gaaro 10 milyan oo doorasho ah, badhanka cas ama guduudan waa la masixi doonaa, isagoo lagu xiri doono koronto ilaa dhammaan xasuustiisa ay ka masaxanto. Lamar ayaa cabsaday kana dalbaday caawimo Wilkes ayaa sheegay in haddii wareysiga ka dhici doono TV-ga ay raaligelintiisu qanciso dadka, ay badbaadin doonaan iyaga oo u codayn doono badhanka cagaarka ahna u taaban doono. Fursadda kaliya ee ay haystaana waa inay diyaarsadaan raaligelin soo jiidasho leh. Kooxda Orville ayaa soo booqatay Lamar isagoo uga warramay wax ku saabsan masaxaadda. Alara ayaana soo xasuusatay in Lisella ay u sheegtay raggii ay raadinayeen in la masaxay. Alara iyo dhaktarada ayaa u baxaya si ay Lisella wax uga weydiiyaan masaxaadda, halka Kelly ay la joogtay Lamar isagoo la barayay sidii uu u raaligelin lahaa dadka. Iyagoo dhiirigeliyay markii la bilaabay wareysiga, dadka ayaa bilaabay sistamka codaynta. Lamar ayaa bilowgiiba helay 4 milyan oo badhanka cas ah ama diidmada ah. Dhinaca kale, Alara iyo Claire ayaa Lisella wax ka weydiiyay saaxiibadooda ka maqan, iyada oo u sheegtay in mid la masaxay loona diray xarunta dhaqan celinta, halka kan kalena la dilay maadaama uu isku dayay inuu baxsado. Alara iyo Dr. Claire ayaa ku jira musqusha. Si kedis ah ayay uga soo gashay Lisella iyadoo aragtay wejiga Alara oo ah mid Alliance ah, wayna naxday. Waxay ku guuleysteen in ay xakameeyaan Lisella kadibna u sheegeen in ay yihiin Alliance, ayna u yimaadeen inay kaxistaan saaxiibadooda. Lisella ayaa u sheegtay in loo xukumay maadaama aysan u bannayn kursiga hooyo uur lahayd. Kadib kooxda ayaa aadaya dhinaca dadka la masaxay. Mid ka mid ah raggii ayaa u muuqda in uu yahay mid degan oo aanan wax dhaqdhaqaaq sameynin. Dr. Claire ayaa u kaxaynaysa dhinaca markabka, halka Lamar uu wax waliba qasay. Kooxda ayaa ka walwalsanayd halka xaaladiisu ku dambeyn doonto. La soco qaybta dambe, filimkan aad ayuu u dheeryahay. Intaas ayaan maanta kusoo koobina. Waxaan aad iyo aad kaga mahadcelinayaa inaad soo gaartay dhamaadka muuqaalkan. Sidoo kale muuqaalka like sar si uu asxaab badan u gaaro. Sidoo kalena channelka subscribe noo sar. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Waxaynu baranaa muuqaalka xiga. Sidaas iyo nabadgelyo.